madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada London ku sugan isla maantana waxa uu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayay arrimaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya. Shirka jaraa'idna waxa uu qabtay wariyaasha iyo idaacadaha iyo TV-yada ka socda dalka Ingiriiska oo ay kamid yihiin TV-ga ETN. madaxweynaha waxa la weydiinayay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo waxyaabihii uu qabtay intii uu talada hayay dalkeena hooyo ee Soomaaliya. madaxweynaha waxa kamid ahaa su'aalihii la weydiinayay sida tan. رئيس وزراء wuxuu ballan qaaday kaalmo furan iyo isbarbartaag aan xad lahayn waxaana uu xil saaray wasiiradiisa iyo wafdigayga inay ka sii doodaan sidii loo soo ragin lahaa kaalmadaas. maruu TV-ga ETN madaxweynaha su'aal ka weydiiyay qaabka iyo nidaamka ugu wanaagsan ee loo heshiin karo mucaaradka iyagoo ka soo horjeedana waxa uu madaxweynaha ku jawaabay isla sida tan. tababarka ciidamada iyo wada hadallada waa wada socdaan dawlad kasta oo adduunka joogtana haddaysan xataa dagaal ka jirin kooxo la dagaalama aysan jirin waxay u baahan tahay ciidan amniga dalka suga oo xasiliya oo dadka u adeega marka in ciidamo wanaagsan loo diyaariyo dalkana waxay ka mid tahay mas'uuliyaadka dawladda saaran oo sugaya sidaas oo kale si lamida waxaa barbar socda wada hadallada marka labada dhinacba waxaan aaminsanahay inay u wada adeegayaan nabadda labada qaybood aan wada al-sunna wal jamaa waxa dhici doona bishan gudaheeda heshiis qorshuhuna wuxuu yahay in ayaga laftigooda ka qayb qaataan hawlgalka Ethiopia and Djibouti. waxaan uga sheegi kartaa waxaa media lagu sheegay in dawladda rumiya inay dawladdu ka soo urursanayso dad askara Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Soomaalida ku nool qaar ka mid waxba kama jiraan arrintaas dadka Soomaaliyeed jooga gudaha ayaa diyaar u ah inay ciidan noqdaan oo ay difaacaan dadkooda waxaan aragnaa talabka u diyaar garowga arrintaas inuu aad iyo aad u badan yahay arrimahaasna waxay ahayn arrimo siyaasadeed oo la rabo dawladda in lagu dhaawaco waxaana sameynay guddi arrintaas ka shaqeeya cid alla cidii laga shakiyay gaar ahaan Kenya ciidamada lagu tababarayna waa laga saaray iyagoo la ogyahay inay Soomaaliya haddana cidii loo qaatay inay waqti dheer Soomaaliya ay joogeen Kenya waxa laga saaray ciidanka. Cabduqaadir Axmed Wariye ETN London.